geedkan waa geedka ay Soomaalidu u taqaan huruudda, waxaana afka qalaad loo yaqaan kurkuma. Dumarka Soomaalidu waxay marsadaan wejiga, waxaase inta badan si weyn looga isticmaalaa wadamada Aasiya siba wadanka Hindiya. Culimada sayniska ee dunida ayaa hadda daray waxtarka caafimaad ee geedkan oo in badan ay diidanayeen in la shaaciyo. geedkan ayaa la ogaaday inuu sunta ka saaro curuqyada iyo xididada jirka bini'aadanka, wuxuuna wanaajiyaa halbowlayaasha waraabka wadnaha, wuxuuna xoojiyaa raganimada. sidoo kale waxa uu kordhiyaa awoodda dumarka ee dhalmada. waxaa la sheegaa inuu furo appetite-ka qofka cuntadu ay ka xiranto. waxaa kale uu sunta ka saaraa uurku jirta siiba mindhicirada oo sunta haraadiga cunnada uu ka maydho, waana sunta inta badan keenta gaaska iyo weliba calool ololka. waxa uu sifeeyaa beerka iyo kelyaha oo iyagana uu ka saaro sunta. waxa uu maskaxda ka ilaaliyaa sunta iyo weliba xasharaadka sababa inta badan cudurrada asaasiga, kansarka iyo weliba isku buuqa. wuxuuna jadiidiyaa unugyada maskaxda ee iyagu baaliyooba. waxaa loo isticmaalaa qurxinta wejiyada iyo baabi'inta weliba xaadda iyo timaha wejiga gala. waxaana lagu cadeeyaa inta badan ilkaha, waxaanu caddeeyaa uu soo celiyaa dhalaalkii ilkaha, afkana uu udgooneeyaa. haddaba waxaa fiican inta badan in lagu cadaydo markaasi aad ilkaha dhalaalkoodii iyo quruxdoodii iyo cadaankoodii aad ku soo celiso. waxaana fiican inaad markaasi aad ka dhigto sidii macjuunka oo cadayga oo kale aad ugu cadayato. waxaa kale oo fiican inta badan in aad ku darsato sharaabka cuntadana aad ku kariso siiba suugada. gabdhaha raba inay wejiyadooda nuuriyaan oo caddeeyaan, waxaa ku filan inay caano iyo liin ay ku qastaan huruudda, sidaana ay ku wanaajiyaan oo ku qurxiyaan wejigooda. like sii sheer garee si aad uga faa'iidaysato barnaamijyo cilmiyeysan oo soo socda.